wafdi balaaran oo hogaaminayo boqor Burhaan boqor Muuse oo ah boqorka beelaha Daarood ayaa maanta gaadhay deegaanka Dhume ee koonfurta gobolka Sool. Wafdigan ayaa waxa ay ka koobnaayeen isma ka kala socotay Puntland iyo Jubaland. Boqorka ayaa waxa soo dhaweeyay dadka deegaankaasi isagoo kulan balaaran la qaatay isla markaana ku xoojiyay nabadda halkaas laga dhaliyay. safarku waa iftiin aakhira wax lagu ifsada adduunku iftiin yahay gobonimadu dagaalka iyo dilka hadda ina ku socda halkaas ka dhaxisbaha dadka ahaa dariska ahaa walaalaha ahaa xididka ahaa ama Soomaaliya oo dhan arinta meesha ka dhacday wax mucjiso ah oo la yaab leh oo naga naxisay ayay noqotay sababtoo ah نبي وحول صلى الله عليه وسلم عملك يقول الصري يعني شعلها أنيق صوما مركا عملك إله مركي لو جينا دوما ضوال سامحة مؤمنين تاع إلا ضدك عروش يقولبت وحسوقها يمويان سيدا أوجد واحد دعي قدر الله وين دعين لكن وإن السويدية محا علاج الدواء وأنا أنمي أرنتاسي إلى أن نكتع سينو تعصيدا كلية مؤمنة waxaan u nimi arintaas inaan markii hore si fiican uga qayb qaadano dhinaca waxtarka iyo dhinaca maslaxada waxaan aad ugu bogaadinaynaa qolada kiliga shanaad garaad kulmiye oo arintii khiyaartii intuu qaaday jigjigay oo aan arintaas ku kalsoonahay walaan dhalay iyo mid walaalkay dhalay iyo halka ku dhintay saddex kana waa ku dhaawacay waxaan caawa ku jacay waxaan qaadanay taladii aad noo wadeen iyo ducadii waa qaadanay waxaan qaatay anoo ku hadlaya afka cabdi garaad mudane iyo culimo iyo dhalinyaro iyo marwooyin iyo mudanayaalba talada ehelku noo wado oo noo keenay waanu qaadanay si kalsooni iyo iimaan leh 15 isin oo daarood iyo uqaal iyo culimo wada socota maanta ka hor nooma imaan waa noo mahad iyo ilaah wax loogu xamdi noqo wuxuu socdaan waxa weeye inay dhibka idinla qaybsadaan inay idinla wadaagaan xanuunka iyo dhibaatada jira arrinkaas ayay u socdeen insha allah bismillahi kariim rumusha akaal jibjiga waxaan rajaynaynaa inay si khayr ka soo dhamaato waxaan rajaynaynaa natiijada ka soo baxda inay dhammaanteen waxaa ka waan mahadinaynaa waan uga mahad celinaynaa dowladda reer jibjiga dowladda deegaanka dowladda fililka